wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Cabdulqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Dhagaweyne ayaa si rasmi ah xilkii u wareejiyay munaasabad lagu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda agaasimo waaxeedyada iyo sida oo kale madax qaybeedyada wasaaraddaasi munaasabadaasi waxaa ka hadlay oo halkaasi hadal ka soo jeediyay agaasimaha waaxda shaqaalaha Maxamed Axmed Weyrax agaasimaha waaxda kastamada Maxamed Nuur iyo sida oo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Cabdi Gurxan iyaga oo dhammaantood shaqo wanaag ku amaanay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi. anigu markaan tayada ka hadlayo inta anigu meesha joogay intuu wasiirka meesha ka ahaa laba waaxood baan agaasimo ka noqday, waaxda kastamada iyo waaxda shaqaalaha. haddii qofka la qiimeynayo waaxda kastamada kale ama waaxda shaqaalaha kale, qofka hadduu xinif leeyahay waa meelaha laga dareemo way. hadduu faragelin iyo wax la sameynayo taabasho meelaha laga ogaan karo way. Cabdulqaadir nadiif buu ka ahaa, markaati waxaan ka ahay inuu nadiif ka ahaa. shaqada waan wada qabanay marka kastamka joogay, cashuur dhaafyada isaga shaqo ku lahaa, wax kale faragelin nugma u lahayn. controlkiisa iyo dabagalkiisa iyo kormeeradiisa waxay ahaayeen kuwo hufan oo nadiif ah. runtii wasiirka iyo agaasimaha guud ayaa faahfaahiyey oo sheegay waxqabadkii iyo dadaalkii iyo kartidii iyo sumcaddii inta uu la joogay wasaaradda maaliyadda uu kasbaday wasiirku. waxaa faahfaahiyey wasiirka iyo agaasimaha guud. runtii anna waan la qabaa oo waxaan la qabaa Cabdulqaadir inuu ahaa shakhsiyad runtii marka la eego aad u dun wacan, u dabeecad wacan, u karti leh, farxaan ah oo runtii muddada kooban aynu wada shaqaynaynay sidaa uu wasiirku u dhigay aanu kaga markhaati kacayno inuu garab xoog ah oo aniga maadaama oon shakhsiyan ahay agaasimihii guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda runtii tiir wanaagsan oo taageero dhinacyada kala duwan ee operationka iyo howl socodsiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda iga taageeri jiray. meelaha wasiirku uu taabtay ee BFM ka socodsiintiisa, kormeerada meelaha muhiimka ee dakhliyada, kharashaadka iyo xidhiidhka guud ee wasaaraddu ay la leedahay qaybaha kala duwan ee dowladda, wuxuu ahaa runtii shakhsi akhlaaqiyaadkiisa iyo dadaalkiisuba aanu kaga markhaati kacayno. geestiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee xilka wareejiyey Cabdulqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Dhagaweyne isaga oo ammaanay wada shaqayntii wanaagsanayd ee soo dhexmartay isaga iyo guud ahaanba howlwadeennada wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland. waxaan ilaahay hortii markhaati u furayaa Dr. Saad Cali Shire iyo agaasimaha guud ee wasaaradduba iyo dhammaan agaasimo waaxeedyaduba aan u wada shaqaynay ilana shaqeeyeen si wanaagsan. waliba waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda oo runtii aan wax badan ka bartay. ilaahay hortiina aan qirayo inuu yahay nin mas'uul ah, akhlaaq leh, diin leh, dulqaad leh. waxaan isleeyahay wasaaradda maaliyaddu waa ninkay u baahnayd 28 sanadood kadib. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Saad Cali Shire oo isna halkaasi ka hadlay ayaa geestiisa waxa uu ku amaanay wasiirka wada shaqayn suuban oo dhex martay tigii ay soo wada shaqeeyeen. waxaa xilka wareejinaya walaalkeen Cabdiqaadir wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda isagana masuuliyiinta saaka. Cabdiqaadir Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qoray inuu nala joogo inuu wasaaradda la joogo muddo sanada. wax walba day way qoran yihiin.
laakiin waxaynu ka markhaati kacaynaa intii nala joogay cabdiqaadir marka lagu qiimeeyo qofka shaqadiisa iyo shakhsiyaddiisa labadaba inuu ahaa nin aad iyo aad u shaqo wanaagsan runtii weliba aniga culays badan iga qaaday maadaama aan howlo kaloo fara badan aan ku mashquulan ku ahaa ugu dambeyntiina halkaasi waxaa lagu guddoonsiiyey wasiir ku-xigeenka xilka baneeyey cabdulqaadir maxamuud sheekh maxamed dhegaweyne abaalmarin uu ku mutaystay shaqo wanaag iyo hufnaan uu muujiyey wakhtigii uu xilka hayay maxamed faarax coomaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa.